السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي شرفت لي كسو دوادا جنرالكيغا Soomaaliyeed waxaan maanta halkan kaga hadli doonaa mowduuc ku saabsan taariikhda dalka Afrika dhace ee Liberia kusoo dhawaada mowduuceena maanta Liberia waa dal dhaca galbeedka Afrika wuxuuna xad la wadaagaa dalalka kale ah Sierra Leone, Guinea iyo Ivory Coast ama xeebta Falmaroodiga wuxuuna ka mid yahay dalalka Afrika ee saaran badweynta Atlantic dhulka ama masaaxada ama badka dalkan waxaa lagu qiyaasaa 11,369 kiilomitir square waana dal dhulkiisu inta badan uu yahay dhul hooseeya oo taag ah dhul siman oo xeeb ah iyo dhul sareeya oo buuraley ah waxaana sidoo kale dhulka dalkan laga helaa keymo roobaadyo ku qani ah kala duwanaanshaha noolaha waxaana la aaminsan yahay in awoowayaasha dadka ku nool dalkan ay gaareen intii u dhaxaysay qarnigii 12aad ilaa qarnigii 16aad qarnigii 15aad Boortaqiiska ayaa gaaray dhulkan wuxuuna ka bilaabay ka ganacsiga Falmaroodiga sidoo kale wuxuu bilaabay inuu adoon ahaan u iibiyo dadkii ku noolaa dhulkan haddaba su'aasha taagan ayaa waxay tahay sidee ku aasaasantay jamhuuriyadda Liberia ee maanta jirta aasaasidda Liberia waxay ku beegan tahay bilowgii qarnigii 19aad waxaana dhiirigelisay siyaasadii gudaha Mareykanka ka jirtay ee ku salaysneyd is-adoonsiga iyo midabta koorka 1816 koox cadaan ah ayaa aasaaseen xisbi ay u magac dareen American Colonization Society si loola tacaalo dadkii madowga ah ee dalka Mareykanka lagu adoonsanayay ee kolkaas xorriyadooda helay tiradooduna kordhaysay waxaana loo ololeynayay oo laga shaqeynayay sidii dib loogu celin lahaa qaaradda Afrika dhaqdhaqaaqan wuxuu sababay in la aasaaso Liberia si ay u noqoto jamhuuriyadda labaad ee ay leeyihiin dadka madowga ah waxaana ka horeysay jamhuuriyadda Haiti taasoo dhacda badda Caribbean-ka qorshaha Liberia wuxuu si rasmi ah u bilowday sanadkii 1822 kolkaas oo loo bixiyay magaca Liberia kaasoo micnihiisu yahay dhulka xorta ah waxaana sidoo kale dalkan caasimad looga dhigay magaalada la yiraahdo Monrovia taasoo loogu magac daray madaxweynihii dalka Mareykanka ee James Monroe kaasoo si weyn u taageeray qorshihii aasaasidda Liberia 1847 ayaa Liberia si buuxda uga madax bannaanaatay dalka Mareykanka waxaana madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka noqday Joseph Jenkins Roberts dhageystayaal iyo daawadayaal aad ayaad u mahadsantihiin taariikhda Liberia kuma soo koobi karno hal muuqaal waxaan u qaybinay 3 qaybood insha Allah taala qayb ayaan u soo gudbi doonaa fadlan dhageystay kanaalka aad ku cusub tahay subscribe saar gambareelkana furo si aad ula socotid fiidiyoyadeena muuqaalkana like saar si ay noogu noqoto dhiirigelin mahadsanidin